dhulkan waxa waa dhul oo deegaankiisa oo la isku hubo ما شاء الله ما شاء الله la isqabsi ma jiro ما شاء الله لاميغان ومعروف ولاميغي كيمانا يحوش الى على قله بورك ومعروف ماشي لسku sabiro waa ujeedaan dhankaas kaxda loo leexana marka laamigan soo hay wadadan ayuu maartay loo takxiga hal loo tabisa ka xigto dhulka laga gaday waa laba boos birima 20 u dhifta 20 oo laba jidliyaal labadooda sharafta saayidin sheegay dhulka waa kaas saad u jeedaan xabeeb waa kana meeshan waa laamigi marka xaqiiqatan waa ka aniga agadan lahay maanta dijeebkii lacag ay ku jir leed dhulkani ma dhaafi leen meeshaas afarta ku fiiqay waa jaay mar guriga agtiisa albaabkiisa jaay mar oo jidaan jaaygaas ayaad maaragtay ku jeesanaysaa mootada albaabkii ka keenaysaa waxa la harta ku ma kartaa dalcadan kuma dheero waa dalcada la isku sabiro ee ka imaado wadada xoosh dhulkana uma dheero luga ku ma kartaa sartaas dabaqaas aad u jeedaan waa dabaqa maaragtay daabshiladii dhisaysay waad u jeedaa magaalada sidaas ayuu ugu dhow bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan idin heynaa dhul birma ah jaaygan ayuu saaran yahay wareegaas dhismahaas dhisan aad u jeedaan ayuu ka soo jeedaa dhulkan u jeedaa laba jidle waa laba boos من لaba jidle labadooda waa laba jidle waa dhul birma ah ma sha Allah qibla ujeed waay waa dhul diyaarsan oo mustaqbal leh isla hadda ayaa dhisa kartaa waa u jeedaa deegaanka sartan aad u jeedid waa xabeeb xagga waa kasoo shirkado waayo saad u jeedid waxaad kaloo arki kartaa kaamirada si fiican u fiiriso sartaas dabaqaas aad u jeedaan waa dabaqa maaragtay daabshiladii dhisaysay waad u jeedaa magaalada sidaas ayuu ugu dhow yahay laamiga kuma dheero deegaankii waa kaasaa waa deegaan ma sha Allah waa dhul aad iyo aad u fiican ilaa dhankaas hadaas u fiiriso dhul is haysta waay ma sha Allah hadaba dhulkan waa dhul birma ah oo fursada oo taaga qofkii lahaay wuxuu leeyahay dan kaliya lama gadi lahayn hadii aan dantaas jir lahayn marka adduunyadu waa iska dana badan tahay dhulkan waa dhul birma ah cajiib ah deegaanka waa dharkeenley degmada dharkeenley ayuu ka tirsan yahay degmada xitaa uma dheero kaxdana dhinaca kale uu ka saaran yahay waad u jeedaan magaaladii waa kaasa waxaaba ka soo horjeedo dhismaha xabeeb hadaad taqaan waa ka soo horjeediyaa marka waa kaasa dhulkan dhul ma sha Allah waay waa dhul fursad ah laga faa'iideysto marka khayraad sharafta leh dhulkan waad u jeedaan cabir ahaan qaabkan ku imaan hadda midkan oo saas u xiran saa u jeedaan saas uu maaha qaabkan ku maaha ninkan waa wareegsaday oo meeshan aad u jeedaan daarta qaabkaas aad u wareejisan kartaa isla hadda inta dhisata isla hadda digi kartaa marka waa dhul fursada oo birma waa 40 waa u jeedaa dhulka sidaas ayuu biyaha u shubayaa waa 40 lagu dhifto 20 waa binti 20 lagu dhifto 20 ee maan finti birkuntusha dhulka waa dhul aad iyo aad weyn u baaxad weyn haba ah qaboob ah magaalada saas aad ugu jeedo meel walba waxa ku muuqata wan sikina ku tagi kartaa hada fursad cajiib ah meeshan ka banaan qofkii ka faa'iideysayo anaga la soo xiriir nambarka eber 686 WhatsApp-ka naga la soo xiriiran dhulkan waa dhul birma fursad hal mar ay ku soo martaa haddii aad u baahan tahay naga la soo xiriir ma sha Allah dhulkan sidaas aad u wareegsiisa wax alaal waxaad ka dhisanaysaa waa dhul saas xitaa biyaha asaga ku shuway waa deegaan degsaad u jeedaan meeshaas afarta ku fiiqay waa jaay mar guriga agtiisa albaabkiisa jaay mar oo jeedaan jaaygaas ayaad maaragtay ku jeesanaysaa mootada albaabkii ka keenaysaa wax alaal waxaad ku ma kartaa marka waa fursad kulli aan is dhigi kara qiimihiisa aad iyo aad u jaban yahay haddii aad diyaar u tahay nala soo xiriir waa u jeedaa laamiga dhankaas kala wadadaas furan waa laamiga meeshaas uma jeed meesha buurka la isku sawiro laamiga marka kaxda la soo aadayo buurka la isku sawiro waa meeshaas u jeedid waxay radaa ka digata suuq waxa joogta cal gulay marka suuq xitaa lagu ku tagi kartaa meeshan ka dhex baxdo wax walba waa iska fududin noloshu aad iyo aad u sahlan tahay qiimahan aad iyo aad u jaban yahay waa magaalada meesha ugu fiicneed oo hadda laga degi lahayd deegaanna waxa u fiican deegaan cusub oo aan maaragtay deegaanada kale tan aan u dheereen waa booskiba laba jidlo waa dhulkan waa dhul birma ah hadaad u baahan tahay nala soo xiriir waa 20 iyo 20 lagu dhiftay 20 ee 20 lagu dhifto 15 maahan waa binti saad dhahdaan waa dhul fursad ah
oo isku xiran oo weyna oo waasac oo labadooda laba jidliyaala labada boosba laba jidla waa oo isku xiran markaas qaab alaal qaab kartaa u dhisi kartaa magaalada waa u dhowdahay waa dhul birma degmada Dharkeenley ku yaala nala soo xiriir macaamilkeena qaaligow haddii aad u baahan tahay eberle halashan 8 xarunta waa degmada Dharkeenley soo dhawaada ما شاء الله دول برما وجدان دول هم موغانينا معلم maxaa leedahay dhulkan dhul kale wuxuu ogyahay aad u qurux badan oo taaga oo buura aqoontiisa maxaad aqoon ahaan aad taqaan dhulkan waxa waa dhul oo deegaankiisa oo la isku hubo ما شاء الله ما شاء الله la isqabsi ma jiro ما شاء الله labadan boos baac waay ما شاء الله waxay u jeedaan qibladay u jeedaan ما شاء الله lootada meesha ka bilaabanaysa waay ما شاء الله laba jidlayaal waa laba jidlayaal waay ما شاء الله marka jaayna waa saaran yahay saas waa baawarka waxa u baahan tahay irdo ka keena عجيب ka degmada oo kaxda iyo Dharkeenley meesha iska qabanayo hal loo taa u dhaxaysa اوكي حبيب oo saaraya حبيبنا وساري وكسور جديد حبيب oo saaraya بوس والبنا لaba jidlo waa mid kasta laba jidlo waa insha بوس والبها Allah laba jidlo ما شاء الله ودول عجيبة وانا تاج حتى عربوش اسكامر بيو كاميرا waa ما شاء الله ودول قبوبة وآد ياد وقروح بدن حقيقة خفك فرصة كفاية سهاي وأنا لا سوحري إبر لي علشان سديتي له صدق سديتي له ودول برما دول كان يوسف كدافن حقيقة وكأنك أقدر هاي ما أنت دي جيب كي العقل كجير له دول كان يمدافن له مرك هذه جنة عقوة أني ما أنت وفرصة بريت ماركت وأنت فرصة دان وكلته دول كان يوسف كدافن شرف الصعيدين الشيء دول كواكاس سادو جدا نحبيب واكنا ماشي ولامي مرك لامي توس waa soo jeedaan soo jeedaan laamiga toos aad maaragtay waxba kuma jiro laamiga taas ku jira wadada hadda u jeedin waa laamiga dhax ku wada socdo laamiga ilaa toos loo wada marka kulay dhulkan waa dhul birma ah oo noocaas ah qofka ka faa'iideysahayo ana la soo xiriir fursadu hal mar ku soo martaa welcome ku soo dhawaada deegaankani oo deegaan cusub ah magaaladana u dhow meel walba daqiiqad ku tagi karto uusan ku dhaafin xabib deegaankiisa waa kaasa aas-aaska dhismaana aad u jeedaan ayuu ku dhagan yahay dhulka waa laba jidle waa laba boos walbana waa laba jidle eberli halshan 8 waa dhul saan isku raacsan badanaa la meel soo dhawaada